بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan in badan maqalnay iyadoo laga waramaya nabiga sallallahu calayhi wasallam hooyadii dhashay iyo hooyadii nuujisay, balse waxaa aad u yar inta laga waramay nabiga sallallahu calayhi wasallam aabihiisa. maxay ahayd qisadiisa? maxaa loogu bixiyey naaneysta Dabiix? sidee bay u dhintay isagoo dhalinyaro ah? xagee buuna ku dhintay? muxuu u dhintay? ma wuxuu ka mid yahay ahlul jannaha mise ahlul naarka? muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan ee daawasho wacan. balse ka hor intaan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. cabdullaahi bin cabdilmudallib oo ahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam aabihiisa ayaa wuxuu ahaa dhammaan walaalihiisa midkii uu ugu jeclaa aabihiis oo ah cabdilmudallib, waxaana la dhalatay 9 wiil iyo 6 gabdhood. wuxuu waalidkiisa u guuriyey haweeneydii ugu sharafta badneed haweenkii joogay xilligaas oo ahayd Aaminata bintu Wahab, waxayna uurkiisa u qaaday ashrafu khalqillaah oo ah nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. balse nasiib daro, cabdullaahi ma uusan soo gaarin dhalashadii wiilkiisa, wuxuu dhintay ka hor intuusan arkin. cabdullaahi ayaa waxaa lagu naaneysi jiray Dabiix oo micnaheedu yahay kii loo niyeystay gowraca. sababta naaneystaas loogu bixiyey ayaa waxay ahayd aabihiisa oo ah cabdulmudallib oo ah nebiga sallallahu calayhi wasallam awowgiisa ayaa wuxuu horay nadar uga galay haddii wiilashiisa ay gaaraan 10 wiil in uu mid ka mid ah ku gowrici doono Kacbada horteeda isagoo ugu dhowaanaya rabbigiisa. wuxuu dhalay 9 wiil. markii uu dhashay cabdullaahi oo ah nebiga sallallahu calayhi wasallam aabihiisa, waxay wiilashiisa noqdeen 10 wiil. waxaa waajib ku noqotay in uu fuliyo nadarkii uu horay u galay. markaas buu caruurtiisa u sheegay nadarkii uu horay u galay. caruurtiisuna way ku waafaqeen in uu fuliyo nadarkaas. markaas buu wiilashiisa magacyadooda mid mid gooni ugu qoray, kadibna wuxuu bilaabay in uu qorituur u sameeyo. markaas baa waxaa u soo baxay magaca Cabdillaahi oo ah midkii ugu yaraay ee uu ugu jeclaa caruurtiisa. markaas buu wuxuu isku keenay ahalkiisa oo ah Quraysh, kadibna wuxuu u sheegay nadarkii uu horay u galay iyo in uu doonayo in uu gowraco wiilkiisa. balse abtiyaashiisa iyo Quraysh cuqaasheeda ayaa u diiday oo uga hor istaagay in uu fuliyo arrinkaas. markaas buu wuxuu weydiiyey, maxaan ku sameeyaa nadarkayga? sideese ku raaligeliyaa rabbigayga? markaas bay haweeney u tilmaamtay in uu isbarbar dhigo cunugiisa iyo 10 geel ah oo kadibna uu u sameeyo qorituur. waxay tidhi, haddii uu qorituurka ku dhaco cabdullaahi, waxaad ku siyaadinaysaa 10 kale oo geel ah ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. markaas buu qaatay ra'yigeeda, kadibna wuxuu qorituurkii ku dhacay wiilkiisa. markaas buu ku daray 10 kale. wuxuu mar kale ku dhacay wiilkiisa. sidaas buu ku waday in uu marba 10 geel ah ku daro ilaa uu ka gaarsiiyey 100 geel. markii uu halkaas marayay ayuu qorituurkii ku dhacay geelkii. markaas buu wada gowracay geelkii dhammaantiisa si uu uga furto nadarkiisa. cabdullaahi ayaa markii uu noqday nin dhalinyaro ah, wuxuu noqday nin ganacsado ah, si la mid ah rag badan oo ka mid ahaa qabiilkiisa Quraysh. kadib markii uu guursaday Aaminata bintu Wahab oy uur u qaaday, ayuu ganacsi u aaday bilaadu Shaam isagoo hogaaminayay koox safarey ah. wuxuuna xilligaas ahaa wiil dhalinyaro ah, cimrigiisuna wuxuu ahaa 25 sano jir. wuxuuna waday Quraysh xoolaheedii ganacsiga. markii uu ka soo laabanayay ganacsigiisa ayaa waxaa ku dhacay xanuun aad u daran
isagoon weli soo gaarin magaalada Maka oo wadada ku sii jira. Markii uu soo gaaray Madiino ayuu ku degay halkaas oo ay deganaayeen reer abtiyaashiisa. Wuxuuna go'aansaday in uu halkaas sii joogo oo uu ka haro safarleyda ilaa uu ka caafimaado. Hal bil kadib markii ay ka soo wareegtay ayuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam awowgiisa Cabdilmudallib u diray wiilkiisa Xaarith si uu u soo ogaado waxa uu ku sugan yahay wiilkiisa. Nasiib daro, wuxuu u tagay isagoo geeriyooday oo lagu duugay meesha loo yaqaanay Daarun Nabiga oo ku taalay reer abtiyaashiisa agtooda. Cudur ayaa dilay isagoo weli dhalinyaro ah. Waxayna xaaskiisa Aaminata bintu Wahab xilligaas caloosha ku siday Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam uurkiisa oo ahaa 2 bilood. Wuxuuna Cabdullaahi ifka ooga tegay 5 xabo oo geel ah iyo xoogaa ari ah iyo jaariyad xabashi ah oo lagu magacaabi jiray Baraka. Waxay riwaayadaha qaar sheegaan in tani ay dhacday markii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam jiray 2 bilood. Waxaa kaloo jira kuwo kaloo sheegaya in uu jiray 7 bilood, balse waxaa raajix ah in uu ku jiray calooshii hooyadiisa markii uu dhimanayay aabihiisa. Waxaa dadka qaarkood maskaxdooda ku soo dhacaya su'aashan ah: xagee buu masiirkiisa noqon doonaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam aabihiisa? Ma wuxuu geli doonaa naarta mise wuxuu geli doonaa jannada? Waxay culimada su'aashan jawaabteeda ka yiraahdeen dhowr qowl oo kala duwan. Qowlka ugu horeeya ayaa sheegaya in uu naar gelayo, maxaa yeelay wuxuu ahaa mid Alle subxaanahu wa tacaala u shariig yeelay oo caabudi jiray asnaamta. Qowlka labaad ayaa sheegaya in uu janno geli doono, maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay ahlul fatraha. Ahlul fatraha waxaa loola jeedaa dadkii dhintay xilligii jaahiliga ama ka hor inta aan la soo dirin Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ma aysan helin nabi hanuuniye oo xaqa tusiya. Allana subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. cidna lama saari doono cid kale dembigeeda, qoomna ma cadaabno ilaa aan rasuul uga soo dirno. Qowlka saddexaad oo ah midka ugu raajaxsan ayaa sheegaya in la imtixaami doono maalinka qiyaamaha. Haddii uu ku guuleysto wuxuu ka mid noqon doonaa ahlul jannaha. Haddii uu ku dhacana wuxuu geli doonaa naarta. Waxaana daliil u ah hadalkii Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo ahaa: ama alladii maata fi lfatrati fayaquulu rabbi maa ataanii laka min rasuul faya'khudu mawaahiiqahum liyudiicuunahu fayursilu ilayhim rasuulan an idkhulu nnaara فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. wuxuu yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam: qofkii dhintay intii lagu guda jiray jaahiliga wuxuu dhihi doonaa Ilaahayow aniga wax rasuul ah iima imaanin. Markaas bay Alle dhaar uga mari doonaan in ay adeeci lahaayeen rasuulkiisa. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala u diri doonaa rasuul si loo imtixaamo. Rasuulkaas ayaa ku amri doona in ay galaan naarta. Wuxuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam yidhi: Allaha naftayda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay, haddii ay rasuulkaas adeecaan oo ay naarta galaan, waxay naarta u noqon doontaa mid qabow ah oo aanan waxba ka dhibin. Markii la imtixaamo kadib, kuwii rasuulka amarkiisa qaatay oo naarta gala waxay gali doonaan jannada, kuwa diidana waxay gali doonaan naarta. Waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii share garaysaa asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato.
si aad noo dhiirigeliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.